waxaa nasiib darro ah kood Soomaaliya maxaa meesha maanta ay joogto dhigay waxaa meesha dhigay afar arrimood wilna waa taagan yihiin qaarkood qabyaalad 60 kin soo bilowday markaan dawladnimadii helnay meesha raba inaan xadaar dawladeed aan aadno oo dad qaanuunka u siman oo jinsiga u siman oo xuquuqda dalka u siman oo qof walba aqoonteeda lagu socodsiinayo oo xagu ka yimid iyo luqadda ku hadla iyo caadooyinka deegaankiisa ka yimid iyo waxaas meel inta la iska dhigo qaran loo shaqeeyo marka la raba in la aado oo ognahay xisaabaad qabiilada la bilaabo markiiba iyo anoo reer hebel iyo boqol xisbi wax ku dhaw iyo maalayacni iyo dil in la isdila iyo waxyaaba aan laga sheekay karin dawladda kacanka timid markay xoogo shaqaysay idina dagaalkii 7 markii dhabarka laga soo jibiyay hoos ay u socotay bayaduna ilaa ay meesh ka baxday wixii ka dambeeyna burburan ku jirna iyo qabyaalad iyo dagaal ogayaal iyo oo hadba magac soo qaadanayo magacna hogaamay kooxeeday ah mar diin sheeganayo umada ku leenayo mar maamul goboleed umada ku leenayo ku fasaadiyo dalka amaalada iyo ajnabiga shaqadiisuna iska noqotay wax lagu faanaba in ajnabi loo shaqeeyo dalkii masaalixiisa saas meesha uga baxday marka waxa waajiba marka in dawladnimada yagleelka hadda socda hadda nasiib wanaag dawladda maanta maxamed cabdullaahi oo hogaamiyo maxamed waxa weeye xoogo waxay abuurtay rajo dawladnimo ma dhamaystira wax badan baa ka dhiman laakiin xoogo yaro waxa muuqday muuqaal dawladeed runtii ma aha war oo la iska leeyahay jaanibka dhaqaalaha iyo horumarkiisa saaka ma qayseen idaacada yani caalamka oo dhan waxay sheegayaan anigu kulli aljazeera ka fiirsaday xataa in hay'adihi dhaqaalaha adduunka ay leeyihiin Soomaaliya Afrika waddan Afrika dhan ka hormartay oo waxay xaq u leedahay maanta mar in deynka laga cafiyo maxaan ku iraadaa lana siiyo maalgelin lagu samayn karo khilaala sanadkan gudihiisa inay dhamaanayso arintaasu bilaha soo socdana qayb ay dhamaanayso sanad gudihiisana ilaa meesha ugu dambeysay ay tagayso dawladda Soomaaliya jaaniskeedu waa fursad waa nicmo Ilaahay oo keenay way laakiin juhdi la geliyay way oo dawladdan ay gelisay ciidamadii qaranka wada aragteen wax isku dhex yaaca jiray maanta ciidan nidaamsan oo meel loogu hagaagay meel lagu dhameeyo meel laga bilaabay ayaa maanta jira oo mushaarkiisa si nadiif u qaadanayo weligeed ma dhicin dawladdan ka hor ma dhicin marka furas badan ay abuurtay wala tabkhasu an-nas ashyaahum ilaahay wuxuu leeyahay quraanka dadka wanaagooda yaan laga baqsinin waxa kamida yaani diin la'aanta iyo dadnimo xumada waxa kamida in qofka wanaag uu leeyahay la qariyo laajli xasadaadka u qabtid iyo cugdadaadka qabtid wanaagiisa sheeg qaladaadkiisana sheeg waxyaabaha yaani ka gaabiyeen oo la raba inay aad u dhisaan waxa kamida in ay arrimaha amniga ay meeshii joogaan kor ka sii aadiyaan oo wax badan ay qabtaan oo dadka qudraadkooda iyo deegaanada waliba nimanka argagixisada ah waxa looga adkaa karaa in deegaanada la abaabulo hore loo soo arkay military shaqo badan buu hayaa kaligiis ma filna waa in qolo walba deegaanka ay joogaan ay ku habsadeen dadka jooga inta la abaabulo oo nimanka dhalinyarada oo macaawisleeda iyo wixii wax haysta iyo wixii dhaqdhaqaaq samayn karo dhan dawladdu gacanta ku dhigtay iyagoo aan qabiilna aan ahayn marka qabiilka inaan ku noqono ma rabno qabiil waa laga soo gudbay waa in qaranka lagu dhex jiraa waxaan rabaa in nimankan hal mar sidii in la siibo shaqadaasuna shaqo adag weey waxayna u baahan tahay dawladdu inay dhaqdhaqaaq badan ka samayso waxa kale waxyaaba ka gaabisa kamida dhinaca dawrka xagga diinta la bixiyo akhlaaq xumad baa dalka ku sii fadaysa cadaaladda lafteedu waxay baahan tahay in dad ahlu diin oo culimada diinta aad u yaqaan la dhex geliyo ma muuqato waxyaaba badan hogaanka waa sare waa ka dhisan tahay laakiin hoosay ka duusan tahay waxyaaba badan baa u baahan inay wala soo dhawaato oo ka dhiman laakiin jawaanib fara badan ay horumar ka samaysa runtii oo in lagu amaano ay tahay waana dawladda ugu injaazaad khadina ama guulo badneed oo Soomaaliya soo martay xilliyo dambe aan garanayo intaan ka garanayo walilxaq yaani maartay shahaada ilaa darajada loo bixiyaa haday saas tahay marka walaalayaal waxa waajib nagu ah inaan adkayno dawladnimada inaan garab istaagno dawladnimada in dadka mucaaradka ay ogaadaan kala saaraan danaha ay leeyihiin ama xisbiga ama kooxda ama qofeed iyo qarankan waxa dantiisu ay tahay dawladnimada dadna waxay tahay hadba xaakimka markaas jooga in loo nasiixeeyo wuxuu ku qaldan yahay lana garab istaago awooddu inay ku fido dhammaan xuduudaha dalkana waa waajib muqaddas oo qof walba saaran way inuu gacantiisa ka geysto nin dawladnimada guud ka soo horjeedana qabiilna looguma heli karo qofna looguma heli karo waa xaraan maxaa yeelay waxa loo helinayo waa qaranka way in dawlad shisheeye qof ay riixayso garab loo noqdana waa diin la'aan taas diinta looga baxayaaba ilaahay subhanahu wa ta'ala waa naga xarimayba waxay dhacday nabiga sallallahu alayhi xilligiisa in la yiraahdo Kacb ibn Malik oo qaldamay baa mar go'doon la geliyay markaas waxa uu soo diray warqad malikul qasaasina kristanka ninka hogaaminayo markaas joogay area Sham iyo dhulkaas joogay markaas uu yiraahdo saaxiibka Maxamed ku gooyay waxaad leedahay saaxiibo waaweyn baad leedahay naaimad waa ku soo dhaweynaynaa waxaan ku diyaarinaynaa maartay jabhad aad isaga dhicisay ninkan nin weyn oo laga dambeeyo Kacb ibn Malik oo qabiilkiisa ku weyn warqadii markay u timid oo akhriyay ooyin baa soo fakatay markaas inta ooyay buu dabka ku riday tinaaro ku dhexriday soo maantaan ogaaday buu inaan imtixaan dhaba ku jiro ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa ka tawba aqbalay marka dad muslimiinta lagu soo celiyay nin saadiq ayuu ahaa aayad quraanka soo degtay asaga sidqigiisa yaa ladina aamanu ittaqullaha wa kunu ma'a saadiqin asay ku soo degtay marka qofka muslimka waxa la doonayaa wax kastoo dawladda ka tabanayo inuu san cadow gacantiisa u ku dhicin xaraam way inuu aado cadow in loogu hiiliyo taas waa qalad waa inuu qofku dawladdiisa u tanaazulaa wixii ilaahay ka siiyo oo ka qaataa maxay waxa loo shaqeynaa waa qarane qof iyo qabiil loo shaqeyn maayo
صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.